waxaan qabaa dalka ugu horreeya Somaliland ictiraafiya inuu noqonayo dalka Hindiya la yiraahdo way sababtuna in waa dana badan uu isagu deeg markuu shaka dalku ictiraafayo ma hadda iskala ka ictiraafayo laakiin dana ay Hindiya leedahay laga soo bilaabay intii Trump xilka yimid waxaa jira diblomaasiyada badan oo Trump bedelo imika Trump diblomaasi loo bixiyey Somaliland markaa diblomaasiyadaheedii ay ku dhaqmi jirnay ee hore ahayd in waan sugayaa wax inay bedesho realistic foreign policy inay u bedesho oo diblomaasiyadaha bedesho xamso markaa diblomaasiyada u bedelaysaa Somaliland waxaa la dhahaa waxa jira multi track diplomacy waa inay samaysaa diblomaasiyado tallaabooyin ah oo kala dambeeya oo marka koowaad ay ka bilowdaa state to state diplomacy ama dowlad inay xidhiidh dowla samayso arrintaas oo shaqadeeda ay leedahay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland inay xidhiidh dowla samayso dal traaga labaad waa inay samaysaa cilmi baarisyo think tankiyo waa inay samaysaa meelo cilmi baarisyo dhalinyarta ku samaysa waa inay samaysaa muhiimadda leeyahay maxaa sugu sheegay cilmi baarista inay iyo meelaha think tankiyadahay Ethiopia MAU waa inagu wada galay xamso mid xaggeena inaga ka yimid oo iyagu ay nala soo doonteen inagu aan la doonanay ama aynu soo bandhignay ama si kale ku yimid muhay waxaa mid ay Ethiopia samaysay waxaa jira maxadka maxadada arrimaha dibadda Ethiopia ayaa wuxuu sameeyey research intaynaan heshiiska gelin oo ka hor 2 sano researchka uu sameeyey waxay ka soo saareen buugga markaa waxay ugu talagaleen boolasiga ay kula dhaqmayaan laba biyood labadaba waa biyaha niilka iyo biyaha badda cas ay kula dhaqmayaan labadaas marka buuggaas ayaa waxaa qaybta biyaha cas waxaa ku jirtay in Ethiopia si uun ku gaadho bad qodobadii ku gaartay markaa waxaa ka mid ah inay heshiisyo Somaliland ay la gasho ay ku jirtay saadaraadad iyadoo waxeedii sii diyaarsatay wiilkeedii ayay inaga iyo madaxweynaha Musabixina hawshii la galay markaa tintaadiyadu waa muhiim waa meelo lagu falanqeynayo oo lagu la faguro maxay siyaasadda dalka traaga saddexaad maxaa intaan halka ka bixinaa dhameeyo Somaliland waxay ku dayasho wax la arki reciprocal diplomacy maanta caalamku gabigiisu iyo waxaynu ka hadlay qodobaas oo dhan wuxuu kow ku soo ururayaa saddex shay waa reciprocal diplomacy oo imika Trump uu bedelay transactional diplomacy wax loo yaqaan ama quick protocol wax loo yaqaan diplomacy loo bedelay sababtu waxa weeyaan wadamadu waxay wax ku jiraan gamcays weydaarsi wax isdaafsi maanta intaan ku siinayaa adigana waxaasan ka rabaa haddaad wadan u tiraa maanta maalmo walba ciidamadayda iga bixi laagtiisa xamso aanu isagu dan kaa dhex lahayn aanu dan kaa arkahayn kuma siinay marka in reciprocal diplomacy-ga la xoojiyo nooca loo yaqaan wax isweydaarsiga oo maxay Somaliland ay samayso qaybta shanaad ama track diplomacy wax weeyaan inay samayso economic diplomacy oo ka muhiimsan waana shayga ugu muhiimsan imika aan ku amaanayo madaxweynaha imika jooga sidoo aad ugu faahfaahiyay shirkii uu ka qayb galay Imaaraadka wuxuu xoog saarayay in uu reciprocal diplomacy iyo economic diplomacy waayo wuxuu dadka u sheegay in Somaliland ay tahay meel dihan la maalgashan karo cid walbana diyaar u ah inay maxay hayday inay yimaadaan ay maalgashadaan diblomaasiyadda traaga todobaadan doonaya wax weeyaan isticmaasho oo anigu aan u arkaa fikir waxa loo yaqaan media diplomacy ama digital diplomacy waa wax cusub waliba to imika inta ugu badan awada waxa la isticmaali jiray traditional diplomacy meelo xidhan baa lagu wada hadli jiray taa Trump baa baabiyey imika waxa lagu wada hadlayaa si qaawan baa loo wada hadlayaa oo maxay adeerkiisa TV hortiisa dadku waxa loo sheegay saadaraadad media qayb muhiim ah noqotay marka waa in la isticmaalaa media diplomacy oo Somaliland ay isticmaashaa diblomaasiyad markaynu ka hadlayno talaagada halkii ay geli lahayd iskaashiyo laba dhinacyo badan ah waa in dalalka iskaashiyo laba ah ay gashaa xamso waxa muhiim oo kale waxa la yiraahdaa proactive diplomacy oo ay Somaliland waxaad moodaa in diblomaasiyad ay ku jirto ay ka guurto proactive diplomacy oo reactive diplomacy ay maxay imika waxaad moodaa markay wax dhacaan inaynu ka daba tagno falcelinta ay sameeyno waxa jira markaa imika caalamku way ka soo in laga soo hortago maxaa halkaa inoo qarsoomi kara inay ka guurno diblomaasiyadda aynu sugidda ah oo reactive diplomacy-ga ah oo aynu uga guurno mid aynu inagu wixii ka sii hortagayno oo aynu wada hadalna gobolka aynu maxay hogaamino waxaan ka samayn karnaa taa waa siyaasaddeena arrimaha dibadda oo aynu xoojino tagtaagyo la sameeyo diblomatic maxay akademiyo
diblomaasiyadda lagu baro ardada jaacadda iyo maxay dadkeenana la sameeyo oo haddii ay dadkeena diblomaasiyiin badani ay inoo soo baxaan oo maxayda la dhiso waxaa muhiima mid kale maxaa soo safaaradaha marka taa laga hadlaya safaaradaheena dadka inoo jooga in dad lagu ataaj gareeyo aad u yaqaan dhaqaalaha iyo maalgashiga oo waddamada ay la joogaan ka soo dhaadhiciya inay waddanka loo keeni karayo maalgashiga oo safaaradaheena jooga dad khibraddaa leh maaha dee dad halkan laga diray oo saamiil waxa lagu siiyey laakiin dad khibrad le dhaqaale iyo mid maalgashi kala dhaadhicin karaa waddamaday joogaan inay maalgashi ay ku sameeyaan waddamada markaad caalamka eegto waddan kasta wuxuu leeyahay xasu xarumo cilmi baadhiseed oo loogu talagalay arrimaha dibadda iyo boolisiyada iyo foreignska somaliland marka waxaa looga yahay somaliland center for international relation inay samayso oo meel dee ay xogta iyo baadhista lagu ururiyo kuwa madaxa bannaan iyo maxay kuwa dowladda ah iyo maxadada iyo meelo badan oo kale maxay lagaga ururiyo xadka arrimaha dibadda markaa waa in realistic foreign policy aynu u guurnaayo kan kale aynu iminka ka guurnaa laga guuraa ereyga ah waan u qalmaa somaliland mar walba waxay leedahay waan u qalmaa maxaan u qalmaa in la ictiraafo oo xad baan leeyahay sharci baan leeyahay kanaan leeyahay oo ay caalamka la jaan qaadnaa oo waxaan u guurnaa waxaa weeyaan maxaa interest maxay sabab somaliland wax sababaysaa ay ka heli karta dee caalamka ya way guuleed in badan baynu dul istaagnay wax badan oo u baahan in wax badan bayd ka hadashay guuleed u baahan in la weeleeyo isla markaasna u baahan in qaranka somaliland wax badan ka dhugan doono insha allah haddaynu dhinaca kale ka eegno sidee bay somaliland u abuuri kartaa istaraatiijiyad caalamiya oo ugu dhowaan karto ictiraaf caalamiya iyada oo aan danaha geeska macnaha waxba u dhimaynin ama waddamadan gobolkayna la dariska ah inagoo soo koobina welibana inta marka si kooban soo koobo intan iminkaan ka hadlayo dhammaanteed xasu wax ay waddamada geeska u dhimaysaa ma jirto because of haddaad fisbirikaal diblomaasi ay isticmaashay jabuuti waxay isweydaarsadaan etoobiya waxay isweydaarsadaan inay soomaaliya lafteeda ay wax isweydaarsadaan wadahadallada iyo wixii iminka si fiican wax laysku weydaarsado somalilandna waxay ku gaaraysaa guul waddamadana iyaga dhibaato ma soo gaaraysa midda kale shakiga kale dhex yaalla waddamada ayaa xan soo furmaya oo wax badan baa dhacaya marka waa intan aan kala hadlayay in la sameeyo in bedelo waan u qalmaa in bedelo somaliland waxay ku doonaysaa ilaa 40 sano waan u qalmaa caalamka waan u qalmaa xamse waxa la isku basiyo waxa la isku siiyaa maxaan kaa faa'iidaya maxaad haysaa ee caalamka la isku siiyaa imika balaga Ethiopia qura markii miyiga la galay maxay Ethiopia shuruudeedii inagu hayd inayna ictiraafto iyagana inaynu 20 kilomitir oo kira ah aynu siino markaa waa xusuudaarsi Ethiopia ka haddaan dhado 20 kuma siinaya ictiraaf Ethiopia Afghanistan sanada intaa way ku lahayd marayna siin lahayd haddii adduunka la isku ictiraafayo waan u qalmaa ictiraaf waxyaabaha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliland ay kiibiso waxa kamid ah Ethiopia iyo Djibouti horto xasow حدد بين لو ذاقنا لبضل إثيوبيا ولا حد دير بين لو ذاقنا يجيبوتي سوماليلاند هذه دبات حتى سو قادو ألا ما قارسيو لكن هذه سو قادو إثيوبيا حسنون إذا مشيري كريسا مشيري سو من السيتويسو جيبوتينا والله مي سؤال درد يجي لفت هذا إن لقي يبيو وحينو كذا قد بلنا هيدي وحينو ترى الله شيء قد إثيوبيا يجيبوتي أنا يجو عارك إنه نجو كتير سنة يالقولات إنه نهاية يجو بحر أجي وحويرني بكرنا وأمنينا يجي كلام مركب بدل لقته مركب خيرات كلام لقته مركب كتومي دايو لقته وده جي سوكل إثيوبيا سوماليلاند مراديتنا سميسي دور شو يمكن اللي إحنا كنا يدا لفتنا عقرب كتوي واحد كم قناه يجونا إن اللي راسي سوماليلاند لو كلا سنة تلف يدا وتوال عقرب كله لكن حسوا وتمضى واحد بعطوه كلا سوماليلاند كوهين كرتا قلت برنامج كانوا أنت بدنا بعد يسوحي هيدا اعتراف كسوماليلاند حدينا يجنا اعتراف كلا ما هي saamayntiisiina bulshadii bay haysataa haddaynu eegno danta shacabka wuxuu saamayn ku leeyahay haddaynu eegno dhinaca socdaalka waxbarashada ganacsiga iyo adeegyada caalamiga ah hasu waa su'aal aad u muhiim ah haddii aynu ictiraafku saamayn nagu lahayn 4 sano danta ugu horeysay wasaaradda arrimaha dibadda
ama national interest u horeeyaba ictiraafka inaan dhiganin ictiraafka xamsow inkastoo inagu aan iskala qabsanay bayn laba gaadiidnay 40 sano oo dee adigu waabad yartaan u ilaanan xitaa intaan anigu Somaliland markii uriyada laygu bilaabay dalka dib u soo noqonay ilaa imika calan kala arag meel kaleba aan naftaydu arag waxa weeyaan haddana xiriiradii caalamiga iyo la macaamilkii dadka maalgashiyadii inay waxbarashadii basaboorkii safaradii nolosha qayb kasta adeegto qayb muhiim u ka yahay waayo adduunku wuxuu wax isku weydaarsadaan waa inay is-ictiraafsan yihiin maanta haddaynu dee bangiyada caalamka maahay ka qaadasdira hadday Somaliland istiraan maalgashiyo badan oo kala samee Soomaaliya DP World oo kale markii dee la gelinay heshiiska dee xamsa Somaliland maalmo dhan waa tibaarmanka isku hayay toos bay ula gashay meel kale soo martay dil ictiraafsan yahay DP World intaas oo ma maqnaateen ama shirkadaha kale maxay dil ictiraafsan marka ictiraafku wuxuu muhiim ugu yahay la macaamilka dunida aynu ku nool lahayo maanta markii hay'aduhu mashaariicda wadaan halka hay'adaha baxliga soo hagaajiyay dee inaga ama wadan walba hay'ad ka wakiil tahay toos bay dawladdeena wada xiriir lahayn saadaradeed wax badan oo inagala maqan yahay uu jira inkastoo 40 sano la moodaba inaynu kama maaranay oo aynaan marka maanta urur badan looga sababtoo ah marka dib ugu noqdo sanad aragtiyaha laba nin oo kamid ah waxay oranayaan dalku hadduu dadkiisa dhisto oo qabsado dimuqraadiyadiisa hagaajisto xuquuqda bini'aadamkiisa hagaajiyo si fiican u wada dhaqmo dhaqaalihiisa kordhiyo uma baahna ictiraaf maxaa dhici kara haddii dalalka waaweyn ee dunida sida Mareykanka, Ingiriiska iyo Itoobiya ay ku dhawaaqaan aqoonsiga Somaliland waxay ka bedeli kartaa aragtida caalamka sida ay dad badan malaynayaan anigu uma malaynayo sababtoo ah waxay noqonaysaa un barbilow way noqonaysaa waxay noqonaysaa albaab in badan la mari waayey oo la furay oo la jabiyey laakiin ay ku ictiraafaan dal iyo laba iyo saddex waxa weeyaan wax weyn oo dee waxay noqonaysaa in meel laga bilaabo tusaalaha soo eg South Sudan ayaa ictiraaf la siiyey ictiraafka South Sudan la siiyey waxaa loo qaaday afti dadka waxaa la eegayay markaa danaha ay ka leeyihiin nimanka reer galbeedka haya shidaalkii meesha iyo xitaa diin ahaan South Sudan markii la ictiraafay ictiraafka South Sudan maxay ka faa'iiday waan tegeen South Sudan markaan ka shaqeynayay qolaha hay'adaha shaqeynaya xamsoo tegey waxaa soo noqonaysaa ictiraafku hadduu sidan ba yahay baabana kaaba maqnaado iyo dagaalada mushkilad marka qaar marka macnaheedu maaha laba dal istictaalada ku ictiraafaan xilkan gaaray maaha Kosovo 117 dal bay maraysaa haddana wali waxba ka dhiman marka waxay noqonaysaa un barbilow fiican oo inoo bilaabanta waxaan hubaa hadday bilaabaan iyagu inay dalal badan oo kale ay ku xigayaan mid kale aan xamsoo wax jira article hore aan ka qoray arrinka mar article ka qoray waxay ahayd dadkeenu inta badan waxay dhadaan ictiraafka koowaad ee Somaliland waxa laga rajaynayay inuu ka yimaado marka Itoobiya la rajaynayay MAU-gii imika waa kan istiil ku jiro freezing bay ku samayso oo kan wali la soo qoorinayo laakiin kii labaad waa ka maalmaha waxa la hadalay Trump mid kale oo ka miibsan aan article qabaaya jira waxaan qabaa dalka ugu horeeya Somaliland ictiraafiya inuu noqonayo dalka Hindiya la yiraahdo way sababtuna waa dalal badan oo sheegu deeg markuu shaka dalku ictiraafayo ma hadda iskala ka ictiraafayo laakiin dana ay Hindiya leedahay oo tartan jeeyna kula jirto oo badda iyo aageena Hindiya xiriiradii hore lahaan jiray iyo wadamadan aad ka hadisay laftooda ee Mareykanka iyo Itoobiya iyo qaar kale oo u soo jeedin kara Itoobiya Hindiya maadaama inaga Hindiya xad wadaagin waxba wadaagin saameynay ku yeelan karto Soomaaliya laakiin iyaga xad wadaagaan Itoobiya kale inuu soo jeedin karto laakiin waa article la qoray buu ahaa marba gaar kula soo wadaagi marka aanu aragtiyahaygu waxaan xamisanahay inuu Hindiya uga soo horeynayo in Mareykan iyo Itoobiya labadaba way dalal badan baa goostay oo Catalonia Kosovo Kurdistan macnaha way badan yihiin maxay Somaliland kaga duwan tahay goosashadooda marka laga hadlayo haddii 40 ka dal markaan eegay Somaliland marka laga hadlayo sharciyadii waxaan u kala duwan sababtoo ah 20 ka midii awoodin iyo Somaliland haysato ma bay haysan laakiin waxay fahmeen sida caalamka loo dhaqmo waxay fahmeen in hoo qaado wax lagu helo iyo wax si waxay fahmeen in qowwado waaweyn dibadda ka riixayeen qaarna taariikhaysa qaar Mareykan baa riixay qaar Ruush baa riixay Turkiga oo kala qaar dibadda ka riixay Somaliland marka iyadu wali
riixitaankiiba hortu ka maqan iyo cidkiisa 10 ka mid ah qura ayaa la yidhi labada habo wax la soo ictiraaf waa nomadic legalka iyo political nomadic politica labadaba wada buuxiyo 10 dal markaa Somaliland kuwa waxay kaga duwan tahay wali waxaan fahmay jihadii anu fikir ahaan jihadii ay u dhaqaaqi lahayd ayaan fahmay waliba haddii maanta ay u dhaqaaqdo oo siyaasadda arrimaha dibadda wax badan ka bedesho ay waxa bedesho ama taanu sidaan fikradahan qaba ay bedesho waxaan maanta ka hadlaynin waxaan qabaa in muddo dheerba aan ku qaadanahay way ugu dambeyn gabagabadii barnaamijkeena joognaa miisaan professor Guuleed Yuusuf Iidaan fariinta ugu dambaysa barnaamijkeena ku soo gunaanadayso fariintii martida maxay tahay hamso waa dal mahadsan tahay barnaamijka barnaamijka miisaanba qof wala Somaliland u dhashayba wuxuu aad ugu dadaalaa siduu wuxuu qaban lahaa dalkiisa wax u tara wasabta taas anigoo macallina researchada inta ugu badan iyo waraaqahayga iyo doodaha inta ugu badan ee la galaato saxaafadda caalamiga meel baan ku qoro aan kaga hadlo qadiyadda Somaliland iyo toosinta wixii aan isleeyahay marka waxba ka khaldan dhalinyarada Somaliland waxay leedahay aqoon aad u badan bay leedahay haday tahay arrimaha dibadda xuquuqda caalamiga waxbarashada dhinac walba nin kasta inuu halkiisa isku xilqaamo wuxuu qaban karayana uu qabto uu kula dadaalo sidii aynu gamaha la isu wada qabsan lahaa xamso oo dalkan aan uga dhigi lahayn midaan inagu leenahay waayo بريمة دولنا نقول بين النقطة ما تحت ذلك سوى عطين النقطة صادر هذه دينا يعني حسبان الشقيا حسبان الشقيا ما الدولة بين سوداني منه نقول بوسيديس يسودرو فصادين دا كنا واحد شراء من احتكالنا مركان غوري مثلا ما دوضها ميراها كوكرو مركي قراني قريبات هيك سو نقطة سؤالها أن تقول شيء قبل رويتو ما في بلاد كهر مدافع البلاد يمين الريتريان سيدون في البلاد سيسمي sababtu waxay ahayd article aan anagu maxay Eritrea xuliga xukuma qorin ana ka qorin iyagu igu yeedinay afro kadib markii ogaadeen ayaa maxay haydeen anamaki kala baxnay markaad banaan joogto ee diblomaasiyadda iyo international loogu wax ka qortana aad u badanna waa yeelanaysaa laakiin marka dawladda dibadda kula jirto ee aad wasaaradda dibadda kula jirsan tahay fikirkaad gudbinaysaa waa kii wasaaradda dibadda laakiin kana gudbinaysa waa ka guuleed ahaan aan waan qoraa مثلا واحد كذا بايبر مرة قرية وكذا اللي إنسان مدحمين مسبحي أنا يجوا بسه لا يرى يعني عندها هنا بيش هم هي مرة عندي من إثيوبيا بوالله بيسون بيج وكذا إثيوبيا سيدي ولي جت بتو تيجيش لكن سو بلابا من الكوان إلا يا أبي يو سيداي مركا أنا قام مركا أنا بيجوا مشرب دولة تمام شكل أيا أمي يجوا نيجي artikelada niman Eritrean oo yiri Ethiopia iska celinay ayaa iyaguna jawaab artikeladii mid soo galiyay ina xaqayna ka safnaan Ethiopia waliga damacay xid bikaaliyeen markaana Ethiopia ku waxay xaqooda ka jawaabayeen in iyagu xaq u leeyihiin sharci iyo waxba ay oxom noqotay ay lahaayeen Eritrea ku haysteen markaa malma qaar badan sayidoo qaar ku soo galiyay shaqaysa badan lahayn badgelaysa Ethiopia ama meel walba magaras marka xawayaan dhaliirteen in gamaas qabsanaan walba ku dadaalo sidoo wuxuu tari karo ugu yar dalkiisa tari karo qaday aftay iyo dayadii labadaba aad baad u mahadsan tahay Guuleed Yuusuf Iidaan oo marti ugu ahaa barnaamijka miisaan anigoo xamse xayda idila socodsiinayay dhinaca kamarada waxay kala qayb qaatay injineer Cabdirasaaq Cismaan oo dhinaca farsamadana barnaamijkan qayb weyn ka qaata intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono aniga iyo Guuleed iyo Cabdirasaaq waxaan ku dhaafinaa sida iyo nabadgelyo farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Evergees Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka